waxaanan ku soo ururinayaa oo kaga imanaya nin gabyayey baa wuxuu yidhi lagu eed sidii ina cariye reer xirsi ammaani lagaa orod sidii baandadii aqalka gaabnayd ina caro wuxuu ahaa ina cabdilla xasan wuxuu ka soo jeeday qoys inanlayaal ku ah reer caligeri anigu waan iskaga cadcadaysanayaa arrimahaygee raalli iska ahaada wuxuu ka soo jeeday qoys inanlayaal ku ah oday cabdilla xasan wuxuu inanlayaal ku ahaa reer caligeri buu inanlayaal ku ahaa markaa waxaa jiray laba nin oo ay walaalo ahaayeen labadaa nin waxay ku dhaqnaayeen iyagu doollo oo odayga ayaa xaggaa ku soo dhalay lama garanayo sababtii haddii cabdilla xasan halka ka keentay laakiin inuu reer caligeri inanlayaal ku ahaa oo inan qabay caraseed la yidhaahdo carana ay maxamed dhashay wax ka yar curad guri dambaysna uu ahaa qolyaha waaweyneeye ee yidhaahda wejiga ilaah iyo wejiga astaadka ee waxay soo qaadaan saddex u tago ducaalaa loo yeedho dariiqadii baa la keenay dariiqadu dooxada qoryowan bay ku taallaa kitaabkaa loo baadhay xukun baa ku dhacay dil baa u soo baxay ina fidhin halkaas ayaa lagu toogtay geedkii lagu xidhay weli wuu taagan yahay waddada dhacalkaasuu ka xigaa dhinacii lagaga xidhay wuu qallalan yahay dhinacii lagaga tiiriyey wuu qallalan yahay haddaad doonaysaan waa soo arki kartaa markaa dowladnimadiisu waxay intaas inaan ku baydho maan rabin laakiin dowladnimada ina cabdilla xasan waxay ku dhisnayd inuu bulshada daraaseeyo dabadeetana uu ka helo qayb ka mida xataa al'aan qaybi oo xukun baa jirta xataa al'aan qaybi oo xukun baa jirta axsaabta mucaaradka ayaa u gala waxa u gala uun mid xaggan wax ka tirsanaya ayuunbaa gala kolkaa markii halkaa ay maraysay wuu guuray waxa weeyaan sirdoonka dowladdiisu waxay kaloo ku dhisnayd sirdoonka ayay ku dhisnayd oo calaashaan sirdoonka ina cabdilla xasan wuxuu ahaa mid aynaan shuqul iyo shaqo toonna ku lahayn sirdoonka iyo cilmi baadhistuna ma kala maarmaan laannahu cilmi baadhuhu waa sirdoon haddii dowladda ina cabdilla xasan asalkeedu uu ahaa in uu xog ku bineeyo sidaas darteed sirna ka maarmi mayso inay raadsato markaa laba tiir baynu haynaa iminka oo dowladda ina cabdilla xasan ay xataa al'aan ku dhisan tahay isla sirdoonkiisii buu adeegsaday wuxuu yihi geedka ay isugu yimaadaan soo dhegedhegee bal waxa ay ka sheegeeyaanoo markaa wuxuu u tilmaamay dad figaris ah oo isaga u calaamadsan dadkaa figariska waxa weeyaan haddeer waxaan idinku yidhi halka caqligu kaga jiro halka cududu kaga jirto iyo halka waa dadkii garaadku iyo go-aanadu kaga jireen weeye dadkaa u tilmaamaya marka bal hebel iyo hebel waxay ku taliyeen iisoo dhegaysa buu yidhi nin odaya baa yimi markaa ninkii odayga ahaa oo xalay loo sheegay ina fidhin maleela tukaday dabadeetana geedkiiba muu imanin halkaasuu istaagay ninkii odayga ahaa ee wax dhegedhegaynayna halka kanuu fadhiyaa ninkaasi nin aqoon badan buu ahaa ina cabdilla xasan la yidhahdaa falaagii uu dirtay markuu usoo noqday wuxuu war bal waran wuxuu yidhi niyo waraan kuu sheego ma hayo waxaan maqlay ma jirto laakiin wuxuun baan arkay war aragtiduba waa ware maxaad aragtay buu yidhi wuxuu yidhi ninkii hebel la odhan jiray waa yimi halkaasuu istaago dabeetana warankiisii dhulkuu qotoonsaday markaasuu yidhi haye dabeetana mar laba saddex afar nin buu marba mid u yeedha ina cabdilla xasan saddex su-aalood buu weydiiyey wuxuu yidhi guntigii ma iska furay wuu soo faytaa marka ninku soo socdaale meel dheer ka yimaado wuu faytaa war faydkii ma iska furay oo ma sii daastay maya buu yidhi ee tabtiisii buu faydnaa go-ii uu raggu waa feedha qaawanaa sidaa ogtihiinba oo dee maryo badani ma jirin go-ii sare ma rogtay oo ma hullaabtay mise sidii buu madaxa ugu duubnaa sidii buu madaxa ugu sitay buu yidhi waxaad iiga warantaa buu yidhi warankii ka waran marra dhulku ku joojinayay marra uu ka goynayay buu yidhi inkaare ku dhacday colaad buu taliyey buu yidhi waxaad yeeshaan inan rara way guureen qararay u guureen qarra yar bay u guureen intii aanu ballidocol tegin intii aanu taleex teginin cabdilla xasan qararra yar iyo ballidocol ayuu sii fadhiistay kadib uu taleex u guuray waxaanan idinku sheegaya idinku baraarujinaya ina cabdilla xasan nin reer somalilaana buu ahaa nin reer togdheera buu ahaa taleex oo iminka soolay xilligaa togdheer bay ahayd ay sababtu tahay gobolka togdheer wuxuu ahaa burca waxay ahayd magaaladii ugu ballaadhnayd xilligii ingiriiska iyo xilligii ka dambeeyey ee la samaynayay gobollada iyo degmooyinka 12 gobol bay Soomaaliyadii markay isku jirtay soo martay 16 bay soo martay 18 bay ku
dambayso ku burburtay gobolladii ugu da'da yaraa awdaliya baa ka mid ahaa dee buxugmaayo sanaag soo shan iyo baa ka mid ahaa hahay ayaa ka mid ahaa marka xilligaa uu noolaa xataa taleex tog dheer bay ahaydee ku darsada markaa somalilandnimada waxaa u raacday tog dheernimo haddii uu xumaa iyo haddii uu samaatoonna cidi kama leh haddii uu xumaa iyo haddii uu samaatoonna cidi idinkama leh dowladnimadiisii markaa saddexdaas qodob ay soo dhaaftay waxay isku ku darsatay muruq inay ku muquuniso xoog had iyo jeeraalana marka ay maamuladu masaalixda ka tagaan ee ay muruqa isu rogaan waa marka ay minjaxaabsamayaan markii ay dowladdii muruq isu rogtay waxa lagu daray factoriskii ama qodobadii ay ku taagnayd muruq in xoog wax lagu muquuniyo cadaawad baa soo baxday dadkii bay weyday dadkii markii ay weyday nimankan dhalinyarada ah ay soo marti qaaday baan maalintii dhawtaan wada hadlaynay la kaftamo waxaan ku waryaadheen wardayna cabdilla xasan aniga iga daaya annagu qolyihii ay colka ahaayeen baan ku jiray marka yeelkadayna waxaan uga socdaa taasoo aan halkaa idin soo wada waxa weeyaan wixii keenay in ay dowladnimadiisii xumaato haddii ay dowladnimadiisu ku dhisnayd xoogogaalnimo iyo sirdoon iyo hanuunin ay ka gelayso bulshada qaybi oo qaybaha dulman miisaanka saar haddii ay ku dhisnayd maanta wuxuu ku daray inuu muruq ku muquuniyo muruqii wuxuu keenay in bulshadii qaar la waayo in laga soo horjeesto in lala dagaalamo in qoladii ay ishayeen ay taageero helaan oo dadkii ay u galaan gabayga haddeerta oo ina uu sheegaya xasan ina ku lahaa waxaa tiriyey ina jaamac habiil oo la isku hayo qaarna la leeyihiin inay ilmaabti ahaayeenoo dirir la odhan jiray baa lahaa qaarna ay jaamac u tirinayaan taariikhdu iyadaa waxeeda sugan doontay innaga waxba inagama gelin midhaha inuu u baahannahay wuxuu yidhi degeeg gaal maxasta kuu dhowro ood magansataa dham waxaad arkaysaa in laga doorbiday markii uu muruq ku daray dowladdii in laga doorbiday in gaalka loo galo gaalka in loo galo oo waxyaabihii keenay in uu jabo ayay ahayd oo uu waayo taageeradii faraha badnayd uu waayey dowladina haddii ay taageero shacab weydo way duntaa waxyaabaha taageerada shacab lagu waayana waxaa ka mid ah qodobadaas in maaragtay muruq loo adeegsado in haddii laba kuu samey ogol yahay la kala manjabteeyo la kala gurguro la kala saarsaaro haddii dhanka qabyaaladda laga eego ina cabdilla xasan reer soomaaliyeed oo aan reer waqooyi marka la yihahdo waqooyi kasoo bilow dadka kale qayb waqooyi wuxuu kasoo bilowdaa garowe wixii xagan kasoo xiga waxaa ku nool in hartiya oo majeerteen iyo ka kooban haddii aan laba ku samogo warsangel iyo dhulbahante waxaa ku nool adeeb xugmay in isaaqa in yaro hawiyo ku dhex jirta iyo soomaali kaloo fara badan halkaa u wareeg in doolla ah marka dhulka la kala qaybinayo waxaa laga soo bilaabaa xeeb baa laga soo bilaabaa innaga dhulkeena weeyaan keenaya waxaa laga soo bilaabaa xeeb baa laga soo bilaabaa waxaa lasoo xejaa oogaa lasoo mariya halkaas gawraar baa lasoo mariya gaaroodi baa la mariya hundo hawd doollo inta aan leg intaas oo in ogaadeenka ka midi degan tahayna waxay ku jirtay waqooyiga oo dee sida tan bay soodimo kale waxaan idiin tirinayaa raalli ahaada marka intaa reer aanu laynini kuma jiro reer aanu cid ka dilin kuma jiro dilmadaasina waxay timi markii uu lagu daray qodobka cududda istaraatiijiyaddii ciidanka markii cududda lagu daray bay timi waana markii ay dowladdu ay fashilmaysay waxaan rabaa inaan in yar idinku daro waa badiyey ooyo intaa in legma baan doonay inaan hadlo ina cabdilla xasan taariikhaha sida ay sheegayaan markii uu jabay waa la sii daayey soomaalidu waa dad goba leanno ciidankii ingiriiska iyo hindida isugu jiray ina cabdilla xasan 40 dagaal buu galay 40 goobood buu galay 40 goobood waxay yidhahdaan dhowr iyo 30 buu guulaystay qaarre waxay yidhahdaan maya 40 kaba gacan sarreynta isagaa lahaa waa la adigu buugga jaamac cumar ciise ayaa ku arki doontaan laakiin 40 goobood ee uu galay shantii u horreeyey ayuu ciidamadii ingiriis iyo hindida ahaa marsaday waa markii halgankiisu uu marayey markuu marayey wuxuu dagaalka gacanka hadalka bilaabay 1900 buu bilaabay 1910kii wixii iyo intaa u dhaxaysay 8 sannadood markii uu taageeradii ugu faraha badnaa haystay bay ahayd markii guulihii ugu faraha badnaa gaadhay bay ahayd ilaa 15kii ayay guulihiisu socdeen
adigu wax 5 sano lagu qiyaaso oo dambe ayaa hoos u dhac ku yimi marka 10 sanadood aan idin sheegayo 5 sanadood intii 15 sanadood 10 sanadood hore waa 8 baan leeyahay 8 from 1992 ilaa 10 inta ayuu marsaday miyaa waligiin maqasheen in ka badan 500 oo askari oo cadaan ah in Cabdillah Xasan dilay waa taariikhaha la qariyo laano inagu dad wax qoramaynaan ahayn bari dambeyn ku baraarugnay kuwii wax inoo qoreen waxay ahayn qaar ay qalinka u hayaan reer galbeed laakiin 500 oo askari oo cadaan in ka badan ba kaga dhimatay meel uu weeraray oo dagaalkii koowaad adduunka aan ahayn oo inta in la kaga dhimatay ma jirto adduunyada sidaas darteed isla Soomaali buu isu adeegsaday war maxaan yeelaa markaas la Soomaali baa ka adaga Soomaali u qorada tan Kamil Krobski baa la sameeyay markaas ayaa hawshu ay bilaabantay halka inaan dib ugu noqdo ma doonayn laakiin in Cabdillah Xasan waxyaabaha kale aan la qorin waxa kamid ah in Cabdillah Xasan buu ku dhintay kanaa dishay waa okay maalintii uu dagaalka ku jabay Taleex waa la sii daayay dadkii Soomaalida haba sii daayay Soomaalida gobonimada tilmaamaysa waxa la mar hadduu jabay maxaynu ku falaynaa ha iska tago naagiisi ciyaalkiisa ka xistaan naagiisi ciyaalkiisa waa laga dabageeyay ay sheegaan oo aad iyo aad u qosol badan dhacdada aan aad waxa weeyaan cali dhuux oo ay aad isu hayeen inta cali gariya cali aadan gorayo oo ay aad isu hayeen in Cabdillah Xasan oo marra kamid aha ciidanka daraawiishta ayaa maqlay in Cabdillah Xasan waa joogo markaas uu qosol ku dhuftay markaas uu balday wadaadkii wakaasi dabayshaday oday salaan carabay loo jiray ka dabagabiyo markaas uu daaroodka jabay waa isaaq dadab ku xeereeyay hadii aqalka daahiyada la jiro daaqilka xigay war nin la dilay maxaan kaga digtaa sooma daba aalo marka waxay ku tusaysaa qoomiyadii Soomaalidu sida ay u dhisnayd iyo in hadii ay xukmaay wax badan ay jireen markii uu tagay iimay duuma kanaaca ku dhacday uu dhintay iskii buu isaga dhintay ciidama dilin iskii buu isaga dhintay laakiin waxa aad iyo aad cajiib u ah meeshii uu ku lagu aasay waa laga saaray halkii uu lagu aasay habeen madow baa laga saaray niman xiraho culimo ah baa ka saaray awr bay u goleeyeen hadii laba ku samoogol yahay 2 jeer baa la raray 2 geedi dabadeetna meel dariiqa ah oo agagaaraha ku taala ayaa la geeyay waa lagu aasay waa la ilaaliyay xabaashiisii had iyo jeeraale hadba ninka muruudka ah baa yaqaan xabaashiina Cabdillah Xasan ninka muruudka ah markaa dariiqada haysta ayuunba xabaashiina Cabdillah Xasan yaqaan cid kale ma taqaano sidaas loo ilaaliyaa wuxuu la wadaagaa arintaana hadii xukuma qaar kamid ah halgamayaashii Soomaalida qaar kamid ah waxa jira rag laba jeer la kanfay oo kanfantan laga bedelay sida Sheekh Bashiir oo kale Sheekh Bashiir halka kan markii la keenay meydkiisa meesha tan imka taaladiisu tahay oo golaha la oran jiray golaha fardaa la oran jiray baa la soo dhigay Soomaalidii markaa joogtay way baqday sida gabayga aadan afqalocba ku aragteen waa lagu dhici waayay in loo tago markii dambe waxa aastay dawladda Ingiriiska halkan iskuulka dugsigan tog dheer uu yahay tog dheer kan dawladda hoose ka dambeeya xabaalihii ahaaba lagu aasay markii dhulka dawladdu u baahatay leeyid waa la duminaya ay dadkiisa yiraahdeen ka soo saareen markaa kafantaa laga bedel halka xaganaanada October meelahaas la keenay halkaana waa loo baahday markaana waa laga saaray ugu dambeyntii geelle eeg baa la geeyay way jirtaa dad saa loo saaro oo la wadaaga in Cabdillah Xasan waa laga saaray meeshaas waxa markaa muhiimadeeda leh waxa ina shixiri oo kii maamulo inoo sheegay ina shixiri wasiir khaarijiyihi ahaaba ayay isku gariifeeno markaasuu ina Cabdillah Xasan ina shixiri daraawiish waan ka saara markaasa ina shixirna warqad soo qoran markaasuu ina Cabdillah Xasan ana saalixiyaan ka saara laga gayoon maayo rag badanna waa u hareen laakiin waxa weeyaan maxaan doonayaa kaliya inaan ku gunaado muxuu inoogu jilayay maanta inaga maanta muxuu inoogu jilayay ina Cabdillah Xasan maanta wuxuu inoogu jilayay inaga hal leyd guluub oo ka baxa Afrika oo taariikhda ku jira waayo world history-gu ku jira waxa weeyaan ama maadmulla ha u bixiyaan ama hogaamiyihii dhulbaahanta ha u bixiyaan ama waxay doonaan ha u bixiyaan laakiin Cabdillah Xasan waa shabac taariikheed oo caalamka inooga baxaya wuxuu haystaa guulo xidigo ayuu leeyahay darajooyin waxa kamid ah hadee xugmaayo inuu yahay ninkii 500 ka dilay iyagu way ogyihiin askartii uu ka leeyay way ogyihiin naga leeynaga qariyay saraakiishii uu ka leeyay way ogyihiin saraakiishii uu ka leeyay way ogyihiin ciidankii kaga dhintay way ogyihiin khasaarihii dhaqaale soo gaartay way ogyihiin xataa wax kale iska daya budgetka ay ku soo baxeen diyaaradihii weerareba u qoran
waa qaan laynaga guri doono insha allah oo inaga inagu socotaa yeelkadeeda waxa weeyaan darajooyin buu leeyahay darajooyinkiisa waxaa ka mid ah ninkii amadoobaaya diyaaradda lagu weeraray waxaa ka mid ah dee laba kuusama ogol yahay waxaasoo dhan baa ka mid ah marka halka amiinahaasaan kusoo gebagabeynaya maanta taariikh ayuu inoogu sugan yahay